soo booday marka aan argagaxnay salaas wixii bay ahayd marka argagaxnay kadib qoryo bay nagu qabteen bannaankay noo soo saareen markay noo soo saareen asa meelahaan seexanay meelahaan seexan asay meesha wax ku baranayna meesha seexanayna ay naga dudumiyeen. waa qaar ka mid ah ardadii halkan wax ka baran jirtay oo maanta ay u tahay maalin ka duwan maalmahoodii hore rajadii ay ka qabeen in halkan ay u yimaadaan waxbarashada ayay iminka quus ka taagan yihiin waxaana baaqay u dirayaan madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka gobolka Banaadir. la soo booday marka aan argagaxnay salaas wixii bay ahayd marka argagaxnay kadib qoryo bay nagu qabteen bannaankay noo soo saareen markay noo soo saareen asa meelahaan seexanay meelahaan seexan asay meesha wax ku baranayna meesha seexanayna ay naga dudumiyeen. haddana dadkaas maxaa leenahay in laga qabto marka dadkaas ana laga qabto haddana xagee seexanaa sariiraheena iyo meesha wax ku baranayna naga jijibiyey qolkeena seexanayna waa naga jijibiyey sariiraheena waa kuwa bannaan halkan yaalo. halkan ay ahayd goob waxbarasho ayaa burburkii kadib waxaa laga yegleelay dugsiga hoyga xamar oo ay ka aflaxeen kumanaan arday Soomaali ah marxalado kala duwan oo uu dalka soo maray. halkan waxay ahayd goob waxbarasho sida ay tilmaamayaan mas'uuliyiinta gacanta ku haya maamulka dugsiga hoyga xamar. bismillaahi raxmaani raxiim. halkan waxaa ka salaamaya ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan madaxda Soomaaliya madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya ra'iisul wasaaraha gudoomiyaha baarlamaanka iyo dhammaan xildhibaanada iyo intii mas'uuliyad ay saaran tahay oo ka tirsan dowladda Soomaaliyeed. baaqaygu wuxuu yahay Soomaaliya iyo walaalayaalow xalay habeenimo annagoo jiifna ilmaha yararka aad aragtaan ayaa ciidankii dowladda oo wata uniformkii dowladda ciidanka booliska Soomaaliyeed wata ayaa qoryo iyo xoog ilmahaas yararka adeegaysiin soo bixiyay alaabtoodina bannaanka saas u dhigay cagafna way wateen oo waadka qolkii ay jiifeen guriga ay jiifeen sida u dudumiyay. arrinkan muddo badan dhowr maraan ka hadalnay dhowr maraan baaq u jeedinay dowladda Soomaaliya. arrintaani waa dhul boob oo danta guud dhulkiisa la boobayo waana aan sheegnay dhulkan lacaga laga dhex arkay badan fara badan ilaa dhowr 10 milyan lagu qiimaystay aniga aad arkaysaan 2 milyan lacag la iga keenay ummadda Soomaaliya hore ugu sheegay haddana waan diiday. hadda markaan diidayna waxay timid xoog xalay aniga qorya lagu qabtay waa la handaday waa la argagixiyay ilmaha la argagixiyay habeenimo la xiray xabsiga la geeyay. hadda saacadan arkaysaan aan ka soo baxay xabsiga aan ka imaaday wax lagu xiray ma qaano warqadda waaranka aad u xiraysaa inta saayay waa liid wali tuso station markaan tagay waxaan aaday warqadda wax lagu xiray hal tuso imaysan tusinin. marka waxaan oranaa si sharci darro in lagu burburiyay hantidan qaranku leeyahay dhismaha anagu ma lihin iskuulku waxa iska leh qaranka Soomaaliya iska leh waxa lagu dhisay canshuurtii dalka lagu dhisay canshuurtii Soomaaliya lagu dhisay dhismahan wuxuu dhisan yahay muddo ka badan 40 sano ka badan waay dawladdii kacaanka dhistay wuxuu ahaa xaruntii IDA International Dispensary Association oo lagu xareen jiray la dhigi jiray qalabka waxbarashada oo ay kamid yihiin kuraasta iyo miisaha iyo qalabka laababka fasalada la dhigi jiray oo yaala labada bakhaar arkaysaan. haddana arday Soomaaliyeed oo 100 arday ah ayaa seexanaysa oo jiiftay oo xal habeenimo argagax la galiyay waa ku hadinacyada jiifo caawa meel saxdan ma haystaan war caawa meel saxdan ma haystaan caawa meel saxdan ma haystaan sirroodii kullu halkaas waa ku daasan sanduuqyada kullu way daasan anagu dawladdii ciidankeena difaaci lahaa haddii maanta bannaanka saan noo dhigtay ma garanayo cidna difaaci doonto ma garanayo. madaxweynuhu arrintan waa wax badan aan idaacadaha ka hadalnay ra'iisul wasaare wax badan aan kala hadalnay ummadda Soomaaliyeed waa u bandhignay ma naqaano meel wax si keen ma garanayno. booqashada iyo gurmadka maanta ay noo fidiyeen oo Soomaalinimo waxaan rabaa halka kan inaan ka sheego in xalay dugsiga hoyga xamar uu ka dhacay tacadigaasoo dhanka ah xagga bini'aadanimada tacadigaasoo dhanka ah xagga waxbarashada tacadigaasoo ka soo horjeeda horumarka iyo xadaaradda bulshada bini'aadanku ay leedahay. waxaa dhacda goor dambe oo saacaddu ay tahay 10 saac goortii ilmuhu ay ahayd inay u kacaan salaada subaxa
ilmaha kan gadaasheeda fadhiyo waa ilmaha qaybta kulleejka qaybta kulleejku macnaheedu waxa weeye waa ilmo seexda 24 saac meeshaan jooga waxna ku barta tarbiyana ku hela noloshooduna ay tahay deegaanna meesha ay u tahay halkan waxaan degannahay laga soo bilaabay ilaa iyo 1999kii kulleejku wuxuu furan yahay 2000 baa la furay 20 sano furan yahay qolalkan aad arkaysaan sidaasaa loo isticmaalaya 20 sano waxaana iskale wasaaradda waxbarashada waxa ayaan darro ah iyadoo wax kale la samayn karay ama dhulkan dawladda ay leedahay loo badbaadin karay haba joogtee waxaa qumaneed in inta la yimaado la yidhahdo war ilmaha meesha ka bixiya nalooma quurin nalooma imaanin waxa meesha jooga kulli waa arkaysaan waa saqiir ninka daadooda waxay u dhaxaysaa 8 jir ilaa iyo waxay u dhaxaysaa 18 sano ninka ugu badan baa jira lama socdaan dalka waxa ka jira xalay waxaanu ku seexannay farxad bay ahayd mudaharaad iyo cabsi aan qabna waa la heshiiyey iyo nabadaan ku seexannay laakiin annaga habeen farxad nooma ahayn waxay ahayd habeen la miray waxay ahayd habeen ciidamo ay nagu soo daateen waxaan garan weynay maalinkiiba mucaarad noqday oo mucaaradnimo la ka baarayaa kadib waxaa la maamuliina aaway maamulihii guud ee cabdiraxmaan yuusuf dhegey waa la qabtay waa la xiray annaga oo dhan iyo xaaslaydii iyo dadkii meesha deganaa kulli meel baan lagu hore waxaa la soo dhawaanina waxaa lala yimid qalab baallo guryihii alaabtii ku jirto dhan bannaankaa loo soo tuuro shaqaale la keenay baalladuna kadib waxay bilowdeen inay burburiso labadan hool oo dhisan oo shaqaynaya muddo 20 sano soo dhaafay waxaa kale loo burburiyey fasalladii meesha ku yaalla wax lagu baranayay intaba waxaa loo isticmaalayay waxbarista iyo barbaarinta ubad Soomaaliyeed wax kale oo meherada oo lagu hayo ma laha waana shaqadii dawlad ama qaran uu qaban lahaa ummadiisu qaban lahaa waxaa marka ayaan darro ah haddii marka maaragtay shacabkanagii meelihii uu ka soo dhismi lahaa oo waxbarashada ah ood ogtihiin qiimaha adduunka waxbarashadu ay ka leedahay ood ogtihiin ummadu waxyaalaha ay isku dhaafaa inay tahay heerka waxbarashada laga taagan yahay wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa warqad horay ay soo saartay waxa ay ku sheegtay in dhulkan ay leedahay wasaaradda waxbarashada iminkana uu yahay iskuul ay wax ku baranayaan arday Soomaali ah su'aasha isweydiinta mudan ayaa waxa ay tahay miyaanay iska warqabin lamaha kala duwan ee dowladda maxaase kaga qorshaysan dowladda federaalka Soomaaliya in ka badan 3,000 oo arday oo halkan aroor walba u soo jarmaadi jirtay si ay wax u bartaan waa kuba ay isweydiinayaan qaar badan oo ka tirsan shacabka Soomaaliyeed si kastaba wasaaradda waxbarashada dowladda federaalka Soomaaliya ayaa horay u soo saartay warqad ay ku cadaynayso lahaanshaha dhulkan oo ay sheegtay in wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dowladda federaalka Soomaaliya ay leedahay muddo dheer oo garsoorka Soomaaliya kiiskan uu hor yaalay ayay qaar ka mid ah lamaha garsoorka waxa ay ku doodayaan in dhulkan qaybo ka mid ah ay leeyihiin shakhsiyaad xasan kaahiye Som News TV Muqdisho.